halkani waa janalka aftahan video production oo kamida janalada ku hadla afka Soomaaliga saaxiibada aynu jecelnahay oo dunida meel walba oo aad ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyo tayeysan oo aad ka heli karto janalka aftahan video production. barnaamijyada aad ka maqli karto janalka waxa kamida barnaamij goordhow foodan ugu soo haya oo lagu magacaabo subax wanaagsan isla markaana aroor walba xambaarsan macluumaadkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. barnaamijkaasi iyo barnaamijyo kaleba waxaad ka dhageysan kartaa daqiiqad walba janalka aftahan video production ee fadlan ka mid noqo kumaanka kun ee ku xiran si aad u hesho barnaamijyadii ugu xiisaha badnaa ee ka faaloonayay siyaasadda Soomaaliya. barnaamijyadu maqal iyo muuqaal ay isugu jiraan ballanteenu waa adigoo ka mid noqda kumaanka kun ee ku xiran janalka aftahan video production oo tartiib subscribe yiraahda waa macquul in janalkan barnaamijyada ka baxa janal kale oo si copyright isagoo aanan ixtiraamaynin uu qaato hase yeeshee ballanteenu waa aftahan video production. imikana saacadu waxay abaaraysaa waqtigii aad dhageysan jirteen barnaamijkii arooriyaadee subax wanaagsan anigoo Cabdilaahi Balwaana ayaana ka soo jeedinaya magaalada ganacsiga Koonfur Afrika ee Johannesburg. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan. bismillaahi raxmaani raxiim. nabad weeye nabad dunida meel walba oo aad ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii subax wanaagsan. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan. waxaa soo iftiintay qorraxdii arooriyaadoo shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh. waxaa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil oo u kala dareeray kasab iyo tacliin. waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ah ee inta uusan ku goyn adigu goo. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan. mar kale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan. waa aroornimo talaada taariikhdu waa 6 bisha 2 sanadka 2018. qodobada barnaamijkeena arooriyaadee subax wanaagsan aad ku maqli doontaan waxaa kamida xildhibaanadii ugu badnaa oo mooshinka diyaariyay raisal wasaare xasan cali qayre iyo dowlada shisheeye oo lacaga ku bixinaya mooshinkaasi. tarsan iyo siyaasiyiin fara badan oo caan ah ayaa lagu bahdilay shir qarsoodi ah oo ka dhacay villa Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo u digay dadka dhisanaya wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagula taliyay inuu qayb ka qaato sidii loo bedeli lahaa raisal wasaare xasan cali qayre. qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena arooriyaadee subax wanaagsan. magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan waxaan kala soo hadlayaa xarun aftahan video production janalkaasi la yiraahdo uu ku leeyahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan. wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii arooriyaadee subax wanaagsan janalku waa aftahan video production. qodobo xiiso badan dhafooda ayay idinku soo hayaan balse marka hore la taliyaha dhinaca siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, siyaasiga lagu magacaabo Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo qaar kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa lagu bahdilay shir qarsoodi ah oo ka dhacay xarunta villa Soomaaliya. faahfaahin ku aadan qaabka loo bahdilay siyaasiyiintaasi barnaamijka subax wanaagsan ayaa ku diyaariyay ee fadlan dhagahaagiyo reebahagana si inkastoo mararka qaar mansabka aad gaarsiisan tahay oo mujtamacaad ka joogta ka weyn tahay mid aad adiga isgaarsiiso waxa ka sii ballaaran in qaladka aad gasho sax aad ka dhigato. la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweyne Farmaajo ayuu ku magacaaban yahay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. haddana mararka qaar waxaa loola dhaqmaa washman ama waardiye xaafadeed oo kale. saacada ka hor kulan albaabad u xiran ayaa waxaa ku yeeshay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta dalka looga arrimiyay ee villa Soomaaliya madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha madaxtooyada dalka. waxaa lagu bahdilay kulankaasi loogana diiday inay goobjoog ka noqdaan. Tarsan oo ah la taliyaha madaxweynaha iyo saaxiibada Farmaajo si aysan u ogaanin waxa laga shirayay in laga arrinsaday qadiyada raisal wasaare xasan cali qayre oo waayahan diiradda ay saaran tahay in laga saaro xafiiskana ay u badan tahay xilkana uu sidaasi ku waayo. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa u digay dadka dhisanaya wadooyinka magaalada muqdisho digniinta gudoomiyaha gobolka banaadir sidoo kalena ah duqa magaalada muqdisho ayaa kusoo beegmaysa xilli shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho 27 sano ay dhaqan u lahaayeen inay dhistaan wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho iyagoo dhismooyinka wadooyinka sida sharci darrada ah looga dhistana muqdisho ay caan ku noqotay 27 sano ee ugu dambeeyay injineer yariisow ayaa noqday gudoomiyihii ugu horeeyay gobolka banaadir oo yeesho oo la dagaalama dadkaasi aanan sharciga u lahayn dhismooyinka wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho anaga waxaan oga go'an wax halaal wixii dhul danguuda inaan loo isticmaali karin dana gaara waxaan kaloo ayagana ku raad joognaa in wadooyinka laga dhisanayo wadajir iyo dharkanleyba ayagana la joojinayo isla markaana cid alaal cidii ku dhisatayna laga burburin doono aan la aqbali doonin wado si kastoo sharci ugu haystaan inaan sharcigaas waxba ka jirin lana aqbali doonin in danta guud dhulka ah ummadda Soomaaliyeed ee dad gaara ta dhistaan ay ku danaystaan waxaan u joognayna u adeegna shacabka taasna waan uga go'an tahay waana wadi doonaa subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan wali waxaad degeysanaysaan barnaamijkii arooriyada ee subax wanaagsan goordhow waxaa idinku soo maqan xildhibaanadii ugu badnaa oo mooshinka diyaariyay raisal wasaare xasan cali qayre iyo dowlada shisheeye oo lacaga ku bixinaya mooshinkaasi balse marka hore madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa talooyin kala duwan kala kulmay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiin ka madax bannaan oo gabi ahaanba kula talinaya madaxweynaha inuu qayb weyn ka qaato sidii loo bedeli lahaa raisal wasaare xasan cali qayre raisal wasaarahan oo mucaarad aad u xoogan kula siyaasiyiinta Soomaaliyeed gudahooda iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo aad aanan uga helin qaabka uu siyaasadda u maareynayo ayaa kula taliyay madaxweynaha Soomaaliya inuu qayb ka qaato qaabkii loola dagaalami lahaa siyaasadda raisal wasaaraha inkastoo madaxweynuhu inta badan uusan wax diidma ka muujin ayaa waxa muuqanaya inuu raisal wasaaruhu noqonayo mas'uul waqtigan u muuqanaya mid ka sii liicaya kursiga siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan xildhibaanadii ugu badnaa abid ayaa mooshin ka diyaariyay raisal wasaare xasan cali qayre iyadoo ay u muuqanayso in mooshinkan uu noqonayo kii ugu kululaa oo soo mara dowlad federaal ah isla markaana qayb weyn ay ka qaadanayaan siyaasiyiin isugu jira kuwa ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka madax bannaan iyo dowlada shisheeye oo dhinaca dhaqaalaha uga qayb qaadanaya mooshinkan oo maalmihii ugu dambeeyay laga diyaarinayay magaalooyin ku yaala dalka Soomaaliya sida maamul goboleedyada caasimadahooda Kismaayo Baydhabo Garowe Cadaado iyo waliba magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxa iminka ku soo biiray dowlada shisheeye oo dhinaca dhaqaalaha uga qayb qaadanayo iyadoo Turkigana uu ka dhacay kulankii ugu adkaa oo ay qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka iyo siyaasiyiinka madax bannaan dowladda Soomaaliya mooshinkaasi ay qayb weyn uga qaadanayaan wixii ku soo kordha mooshinkan iyo qaabka uu soconayana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada ka baxa channelka Aftahan Video Production subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan dhegeysta waad ku mahadsan tahay dhegeysiga iyo la socodka barnaamijka intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonana waa bahdii barnaamijka oo isku duuban oo idinku dhaafaya annagoo isku xiisa qabna haye subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan